xarumaha caafimaadka ee deegaanada Somaliland ayaa sanadihii dambe la tacaalayay wax ka qabashada caruurta ku dhalata iyaga oo madaxa biyo ay kaga jiraan ama uu dhabar ku daloolo taas oo saameyn karta habdareen wadka qofka. cudurkan ayaa ka dhasha khalkhal ku yimaada habka isku dheelitiranka biyaha ku jira maskaxda bini'aadamka. biyahaas oo maskaxda ka caawiya inuusan dhaawac ka soo gaarin lafaha madaxa ku jira maadaama ay maskaxdu tahay mid nugul. cudurkan ayaa ilmaha haleela marka uu caloosha hooyadii ku jira bisha ugu horeysa ee abuurankiisa. sidoo kale cudurkan ayaa imaan kara marka ay kala bataan miisaanka maskaxda, dhiigga iyo biyaha ee ku jira madaxa qofka, taas oo keenaysa haddii midkood kordho in labada kale meesha ka baxaan isla markaana ay madaxa ku ururaan biyo badan xaddi ahaan. dhaqaatiirta ayaa sheegay in cudurka laga hortagi karo haddii hooyadu qaadato ka hor uurqaadisteeda fitamiinka folic acid oo laga helo qaar ka mid a qudaarta cagaaran ama isticmaalka isaga oo kaniini ah oo ay ka iibsan karto xarumaha caafimaadka, taas oo hooyada ka caawinaysa in ilmaheedu ka badbaadaan cudurkan. cabdicasiis ciidiid cilmi wariyaha erge ee magaalada Hargeysa ayaa arrintan ka wareystay Dr. Mustafa Axmed Yuusuf oo madax ka ah qaybta qaliinka neerfaha ee isbitaalka Hargeysa. wuxuu marka hore weydiiyay cudurkan sida uu la falgalo caruurta. xanuunkan walaal waxa weeye xanuun ku dhaca habdhiska dareemaha ama neerfaha caruurta yaryar. waa xanuun ay ku soo dhashaan waxa dhaawac gaaraya maskaxda iyo xangulaha. marka wuxuu ilmuhu la soo dhalanayaa isagoo madaxa biyo kaga jiraan isla markaana xangulaha dhawr ku furan yahay oo dibadda yaallo. marka guud ahaan si guud haddii loo sheego waa sidaas. waan gartay marka caruurtu miyay ku dhashaanuun mise markay dhashaan kadibna way ku dhici karaa xanuunka imika kaynu ku hadlaynaa waa kan wada socda caruurta ay ku soo dhalato oo qofku isagoo weyno oo 50 jir 40 jir da' kasta nidaamkii biyaha ee maskaxdiisa ku jiray khalkhal uu ku iman karaa dadna in biyo dheeraadi maskaxda ku ururaan way dhici kartaa. marka imika tiin sheegaynaa taas ma tiin sheegaynaa way ka duwan tahay. ilmahani marka hore abuurkiisa ayay ka maqan tahay dadna qof kastoo bini'aadana madaxa biyaha kaga jira biyahaasi meel laga soo saaro iyo meel dib uga noqdaan bay leeyihiin. marka qofka isagoo biyahaasi khalkhalsan yihiin ayuu soo dhalanayaa. marka waxaan ku hadlaynaa imika caruurta ku soo dhalata iyagoo ay khalkhalsan yihiin biyaha maskaxda ku jira halkii ay ka wareegayeen ama biyo intii loogu talagalay ka badan la soo saaray isla markaana xanguluhu furan yahay waana isku hal xanuunoo wada socda. marka qaar waxaa dhici karta inuu ilmuhu ku soo dhasho isagoo madaxa biyo kaga jiraan oo aan dhawarkii furnayn. marka qaarna waxaa dhacda isagoo dhawarku furan yahay inuu madaxa biyo kaga jirin iyagoo wada socdana way dhacdaa. marka waxaynu imika ka sheekaynaynaa waa kii lagu soo dhalinayay waana percentage-ka ugu badan oo ah caruurta ku keena 70% ayuu keenaa. inta kale ilmuhu markuu weynaado 2 jir 3 jir 4 jir yahay way ku dhici kartaa oo infection ku dhacay baa keeni kara meningitis haddii qofka trauma ama jug soo gaadho madaxa dhiig kaga furmo oo halkii biyuhu ku jireen maskaxdu dhiiggaas ku furmo wuu istaagi karaa oo biyuhu maskaxda way ku badan karaan. muhiimaduna waxa weeyaan maskaxda 3 shay oo isleeg baa ku jira. waxaa ku jira waxa isleeg volume-ka ama mugga biyaha maskaxda iyo dhiigga ku jira way isleegihiin. marka saddexda hadduu midabato ka kaluu meesha ka saaraa. tusaalaan haddii biyuhu bataan maskaxda waxa ku yaraanaya dhiiggiina wuu yaraanaya maskaxdiina wuu yaraanaya. biyahani markastoo in yar ku korodhaba waxa ka baxaysa meesha in maskax in yaroo biyo markii korodhaba in maskaxda meesha ka saaraya. marka ilmihii waxa ku keenaya inuu marka horeysa in dhabeelo qayb kastoo maskaxda kamid ah ay dhaawacanto. maskaxda qayb badan bay leedahay. qaybtii adimadii waxaan dhaqaajinaysa qaybtii fikirka, qaybtii balance-ka, qaybtii neefsashada qaabilsanayd. marka qayb kastoo kamid ah maskaxda dhaawac baa gaaraysa. waa gartay Dr. Mustafa bal waxaad ka warantaa cudurkan maxaa sabab u ah ama maxaa sababaya in uu caruurta ku dhaco. cudurkan 70% sida la og yahay waxa sababa faytamiin hooyada ka dhiman
oo la yidhaahdo folic acid boqolkiiba 7 boqolkiiba 30 multifactorial baa la yidhaha waxyaalo badan baa genetic baa keeni karaa environmental baa keeni karaa way badan yihiin laakiin boqolkiiba 70 faytamiinkaas ayaa keena oo hooyada ka dhiman waatay inna ma jirtaa wax xoga oo laga hayo kororka cudurkan oo laga sameeyey Somaliland ama lagu xusay heerka Somaliland ka mareeyo cudurkan wax research scientific research la sameeyey ma jirto data collection iyo waxyaalahaas mooyaan iyo estimation laakiin research la sameeyey ma jirto ilaa hadda waayahay marka haddii Somaliland kale aynu eegno maxaad soo karaysaa in xanuunkani ama cudurkani ku soo bato sabab u yahay horta mar haddaynan meel scale aynu ka dhaqaaqno aynu barbar dhigna aynan hayn waxaan odhan karaa kulley hab nololeedkii dadka ay wax iska bedelin baa ayaa suurtagal ah marka hore dadku waxay ku more natural bay ku tiirsanaayeen dadku inay tusaalaan dadka reemiyo kale ay caanaha iyo khudradda iyo waxaas ay ku tiirsanaayeen bay u badan tahay sidoo kale ma odhan karna wuu soo batay iyo wuu yaraaday midna sababtoo ah markii hore dee may jirin dhakhaatiir qalliin kale ama aqoontan liikow wax researcha oo inoo document garaysnaa ma jirto marka waxaynu ka taxraacnayo meelaynu ka bilowno oo aynu comparison samayno ma jirto laakiin waxaynu ognahay imika waxaan tusaale ku siin karaa cusbitaalkan dawladda ka shaqeeyo bishii waxaan ugu soo maray ilaa at least 10 kiis marka haddii aniga 10 soo marayaan dee cusbitaalada kale ee waddanka oo dhan inta leeg ba soo maraysa marka kulley waa waxyaalaha noo qorshaysay inaanu research scientific research sax samayno at least marka laakiin imika ilaa hadda research ma jiro laakiin adigoo kaliya haddii aad bishii qaabisho ilaa 10 qof oo xaaladahan qaba su'aalka ma muujin karayso in jiro muxuu ahaa korkac cudurku leeymi aad iyo aad runtii uu jiraa korkac waayo waxaad moodaa bulshadu inta badan xanuunkani wuxuu ku badan yahay dadka miyiga ah ee buurka ah waayo sababtoo dadka magaalada jooga si uun bay u helayaan fitamiinkaas oo laga helo inta badan khudradda cagaaran iyo hilibka waxaas laga helaa sida saladkii iyo tamaandhadii liin dhanaantii liin macaantii waxa fresh vegetable oo dhan ba laga helaa marka meelaha miyiga taasoo ku badan abaarihii waa batay dadkii miyiga deganaa sidii ay u noolaayeen wax badan ba iska bedelo caanihii waxay keenayaan magaaladii keenayaan marka lifestyle-kii dadka totally isbedelay marka waan odhan karnaa taasi waa sabab waan gartay cudurkani wuxuu ku kooban yahay in carruurta oo kaliyaata mise waxa jira in dadka waaweyn oo ku dhaco xanuunkan dhabarku inuu furan yahay waa lagu soo dhashaa qofku markuu weynaado dhabarku ma furmo madaxan biyaha saayidka ku ururayaan waa lagu soo dhashaa carruurtu way ku soo dhalataa dadka waaweynna wuu ku dhici karaa marka waxyaalaha keenaya kala duwan marka carruurta markay ku soo dhalanayso inay ku soo dhashaan waxa keena oo ugu badan fitamiinkaas hooyada ka dhiman dadka waaweyn hadduu ku dhaco waxa keeni kara waxyaalo badan sida fiix ka soo baxday maskaxda halkii biyo ka wareegayeen dhiig ku furmay jug madax qofka kaga dhacday waxyaalo kale badan baa jira marka wixii keenaya baa kala duwan ayaan jawaabta weeyi uu ku dhici karaa qof weyn waanay ku soo dhashaan carruurtu marka inagu waxaan ku hortegi karnaa tii carruurta ku soo dhalanaysa oo dee tii dadka waaweyn ku dhacaysay lagama hortegi karo fiix lagama hortegi karo dhaawac lagama hortegi karo waa wax dhicayo natural ah laakiin intaynu preventionka samayn karnaa waa tan carruurta